ينعم لي عن مسلم ممن هم habeenkii leylat alisra walmicraaj ayaa nabiga ilaahay tusay aayaadkii waaweynaa. jannadii baa la soo tusay, naartii baa la soo tusay, carshiga ilaahay buu arkay, jibriil calayhi salaam qaamadiisii buu arkay, ambiyadii ilaahay uu adduunyadan keenay ee isaga hortii adduunyadan joogi jirtay ayuu nebigu masjid al-aqsa uu salaada ku tujiyey. samada koobaadna nebi aadam buu ku maray, samada labaadna nebi yaxya iyo nebi ciisuu ku maray, samada saddexaadna nebiyullaahi yuusuf buu ku maray, samada afraadna waxa uu ku maray maaragtana nebiyullaahi idriis, samada shanaadna waxa uu ku maray nebiyullaahi haaruun, samada lixaadna waxa uu ku maray nebiyullaahi muusa, samada toddobaadna wuxuu ku maray nebiyullaahi ibraahim calayhim asalaatu watasliimaat. markaa buu nebigu ina leeyahay wallaahi baan ku dhaartee waxa anugu aan ogahay haddaad ogaan lahaydeen in yar baad qosli lahaydeen, inta badanna waad ooyi lahaydeen buu rasuulku yidhi. wamaa tadadadtum binnisaa'i cala alfurush, furaashada dushoodana xaasaskiina kulamaad raaxaysateene bannaanada intood u baxdaan ayaad ooyi lahaydeen si ininkoo ilaahay ka magan galaya cadaabkiisa. intaa markuu nebigu saxaabada uu ku yidhi madaxa intay dabooleen ayay maaragtani hoosta ay ka ooyeen. qaduu wujuuhahum, wejiyada intay maro iska saareen ayuu nin walba hadalka uu nebiga uu ka maqlay ayuu la ooyey maaragtani. yani nebigu jannaduu arkay, naartuu arkay. iطalactu ljanna buu nebigu hi fara'aytu akthara ahliha alfuqaraa, waطalactu annaar buu nebigu hi fara'aytu akthara ahliha annisaa. jannada ayaan lay dul joojiyoon eegay buu nebigu yidhi, dadka jannada galena waxaa u badnaa dadka fuqarada la yidhahdo fuqaraa. faqiirku waa ayo faqiir iyo miskiin waa sinfiga ugu horeeya ee ku waajibta zakada in la siiyo. inama sadaqaatu lilfuqaraa, ilahay baa sheegay. walmasaakiina baa ku xiga. miskiin iyo faqiir bay culammadu macneeyeen. faqiirkubaa miskiinkubaa la yidhi waa ka caawa xeraadkii haysta, berri quraacaanan haysan. miskiinkuna baa la yidhi faqiirkuna baa la yidhi waxu caawa ku casheemadu haystaba. inankana dhulkeena masaakiinteena ka warrama dadka masaakiin aan idhahna ama fuqarada. islaan miskiinada waa dhaweyta dhimato faqiiradoo dadka wax weydiisan jirta. mid dariskiisaa yidhi war islaantan lacag badan bay haystaan halkay ku jirtay baadha buu yidhi. 12 kun oo dollar baa laga soo saaray gogosheeda hoosteeda. fuqaradeennii baa agniyaaya. cabdullaahi bn camr bn caas buu ninku yidhi alastu min fuqaraa'i almuhaajiriin ya bna camar anigu horta fuqarada muhaajiriinta miyaanan ka mid ahayn? markaa buu ku yidhi alaka imra'atun, haweeney ma leedahay oo xaas ma leedahay? markaasuu yihi haa. alaka maskanun ta'wi ilayhi, aqal haddana habeenkii aad ku hooyato oo dadka aad kaga asturan tahay ma leedahay? markaasuu yihi haa. markaa buu yihi fa anta min alagniyaa, adigu aqniyada qiyaamaha la soo bixi doontaa buu ka yidhi. islaan ma yeelan karo qofku ilaa masaariirteedii uu haysta mooyaane, soo maha. aqalna de qofku markuu dhistay dee aqalka hanti buu ku dhistay. marka wuxuu leeyahy marba haddaad islaan xaasna aada leedahay, aqal yaroo aad habeenkii aad ku hoyatana aada haysatid, fa anta min alagniyaa, adigu aqniyada ayaad la soo bixi doontaa buu ku yidhi. markaasuu yihi fa ina lii khaadimun, weliba mid baa ii adeego khaadim baan leehay. markaasuu yihi fa anta min almuluuk, marba haddaad leedahay cid kuu shaqaysana haddaad haysato boqorrada qiyaamaha la soo bixi doontaa buu ka yidhi. inankana soomaali waxaa leeyihiin inteeda badan dadku waa saboolo, waa fuqaraa. innaka dhulkeena wax faqiira ma jiro, dadku waa wada aqniya weeyaan. kuwan masaakiinta aan leenahay way dawarsanayaan, yaan la sheegaya qaarina hoteella ku jiraan. miskiin dawarsanaya hotel galaya ka waran. markaa buu nebigu leeyahay jannadaan eegay, dadka jannada gale fuqarada ayaa u badnaa. naartana waan dul joogsado waan eegay buu nebigu yidhi, dadka naarta galena haweenkaa u badnaa. saxaabiyaadku nebiga way weydiiyeen maxay dumarku naarta galideeda ugu bateen nebi allow? markaa buu nebigu laba sifuu dumarka ku sheegay oo aan fiicnayn.
takfurna alcashiira wa tukfirna allacna buu nebigu ka yidhi raggiinu xaq bay nagu leeyihiinna waad qarisaan oo ninkii 30 sano aad la noolayd ama 20 sano ku biilinayaad la noolayd haddaad maalin keliya ay isqabataan xaqii ay intaa oo sano inii samaynayeen iyo xuquuqday ilaalinayeen oo dhan baad masaxdaan buu ka yidhi waxay odhanaysaa khayr uu leeyahayba anigu maba aragba odayga ee warqadayda iiga qaada wa tukirna allacna caydayna waad badisaan buu nebigu yihi caydooda badan xantooda marka jannadaa buu nebigu arkay sal alla alay wasalam naartuu nebigu arkay deedna markaa buu nebigu saxaabada uga warramaya ayuu leeyahay aan ogahay haddaad ogaan lahaydeen in yarna waad qusli lahaydeen inta badanna waad ooyi lahaydeen buu rasuulku yiri marka ilaahay tabaaraka wa tacaala waa xakiim farsuumana weeyaan ilaahay shay walba wuxuu dhiga meeshii ku habboonayd marka noloshan adduunyadan maanta inagu aan haysano ilaahay baa inagu deeqay waxa aan haysanana ilaahay baa ina siiyey waxa qof walba ka maqan uu tabanayana ilaahay mooyaane cid kale kuma hayso waxa adduunyada isbeddel ku imanayana ilaahay mooyaane cid kale ma keento waxaad adigu haysatay ilaahay baa ku siiyey waxa adiga kula soo darsayana ilaahay baa kuu keenay ogow leanna adduunkan waa daar ilaahay ugu talagalay in dadka lagu ikhtibaaro dadka oo dhan halkan kulligan kalaas baan ku jirnaa iskuol kalaaskii baan ku jirnaa imtixaan baan u fadhinaa imtixaanka ayaa baasay ayaase ku dhacay banka qiyaama lagu sheegi doonaa ogow halkee lagu sheegay banka qiyaama yowmaidin tucraduuna laa takfaa minkum khaafiya faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaqulu ha-um iqra'uu kitaabiyah inii danantu anii mulaaqin xisaabiyah fahuwa fii ciishatin raadiyah fii jannatin caaliyah qutuufuhaa daaniyah kuluu washrabuu hanii'an bima aslaftum fi alayaami alkhaaliya yowmaidin tucraduun ilaahay baa inale maalin baa imani doonta layna badhigi doono kulligiin banka qiyaama sidaa laynuu dhigi doono layna wari doono waxba naga qarsoomi maayaan baa ilaahay ka dhinacaa jooga ka dhinacaa joogu arkayaa baa leeyahy banka qiyaama waa dhul dusheeda uusan dhiigna ku daadan cidna dusheeda aan lagu dulmin 7 dhul markii la duubee la laabo dhulkaa soo bixi doonaa ardulmaxshar baa la ydhaha magaceeda ardulmaxshar ashraqat ilardu binuuri rabbiha wawdica alkitaab baa ilaahay waashraqat ilardu binuuri rabbiha arladaas banka qiyaamee khalqiga lagu xisaabi doono ee khalqiga la wari doono la dhigi doono baa ilaahay leeyahay nuurka ilaahay baa iftiiminaya wawdica alkitaabu kitaabka ayaa la dhigi doonaa wajii'a biاnnabiyiina waashuhadaa nebiyadii baa la soo joojin doonaa iyo maaragtaanay malaa'igtii khayrkii sharka qoraysay nebi walba ummaddiisaa la hor joojin uu ku marag furayaa inuu risaaladiiyo diinta uu gaadhsiiyey malaa'igtii khayrkiiyo sharka qoraysay baa la keeni doonaa waqudiya baynahum bilxaqi wahum laa yudlamuun xaqa ayaa mid walba xaqiisii baa la siin oo loo xukumi doonaa asagoon qofna lagu xadgudbin ayaa banka qiyaama laga dhaqaajin doonaa baa ilaahay yidhi marka waxaan adduunyada ilaahayna siiyey oo nicmada oo caafimaada oo arsaaqada oo amniya oo maaragtana lixaada oo awlaada oo nabadgelyo ah oo rooba oo biyahaad cabbaysa ka mid yihiin oo baadkaad cunaysa uu ka mid yahay oo gacmahaagan iyo xubnahan ilaahay ku siiyey ay ka mid yihiin nicamtaasoo dhan meesha la isku weydiin doono ee qof walba lagu su-aali doono waa banka qiyaamo weeyaan maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuhu mid ininka iniga mida ma jiro buu nebigu hadduu jirose rabbigii buu dhahli doonaa laysa baynahu wa baynahu tarjumaan addoonkii ilaahay cid u kala af celinaysaana ma jirta buu rasuulku yiri sala allahu alay wasalam luqada banka qiyaama lagu hadlayaa waa luqa carabiya deedna markaasuu qofku xagga midig buu eegi wixii uu soo shaqaystay buu arkay xagga bidix buu eegi wixii uu soo shaqaystay buu arkay
hortiisuu eegi naartii jahannamu arki buu rasuulku yidhi falaa yara ila annaara talqaa naartaa wejigiisa hortaal meel kale u jeesan maayo khalaas xagga midig khayr wuxuu soo sameeyey xagga bidix wuxuu shar adduunka ku soo sameeyey waxba la dhaafi maayo wa wadica alkitaab baa la yidhi kitaabka la soo dhigi doonaa kitaabka lagu qora camalkaaga markaa buu nabigu yihi fattaqu naara war naartaa gaashaan ka yeesha muslimow qofka muuminka iimaanka qabow naarta gaashaan ka samayso walow bishiqi tamra buu nabigu yihi timir jeexeed kol aada sadaqad u bixisana timir jeexeed ikhlaasku waa cajiib cibaadadu hadday ikhlaas hadday ilaahay dartii kaa noqoto inteeda yar baa wax ku tari laakiin cibaadadu hadday buuraha la eg tahay oo sumco iyo riyaa ay ku dhex jirto waa ka sugan inay ku anfacdo cibaadadaas walow bishiqi tamra macnaha looga jeeda waa maxay jeex timira ood ilaahay dartii aada u bixisay naartuu kaaga noqon doonaa gaashaan faman lam yajid fabikalimatin tayiba buu nabigu yihi qofka aanan wuxuu sadaqaysta aan helinna kelmadda wanaagsan ha ku hadla buu rasuulku yihi kalimatu tayiba waa maxay laa ilaaha ila allah kalimatu tayiba waa maxay asalaamu calaykum waraxmat ullah kalimatu tayiba waa maxay istikfaarta weeyaan kalimatu tayiba waa maxay subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar kalimatu tayiba waa maxay dadkood wanaagga u sheegta waa kelmad wanaagsan dadka oo munkarka iyo xumaanta aada ka joojisaana waa kelmad wanaagsan carabkaaga isticmaal daa dhaqaalihii weyday nicmadda carabka adeegso salaadii subax markuu nabigu saxaabada tujiyey maalin maalmaha ka mid a ayuu yihi aaway ninka xalay sadaqadaystay buu yihi masaajidkii waa la buuxa sadaqadaystihii xalay sadaqada la baxay mey buu rasuulku yihi haween xaggaabuu eegay ninba waa kici waayey xagga nin la odhan jiray culbata binu zayd allaha raalli ka noqdee oo fuqaradii muhaajiriinta ka mid ahaa ayaa xishooday uu yihi war ma adiga malaha lagu jeedaa war ma arrinkaaga xalaytoola adiga ilaahay naga dhexeeya malaha nebiga la daalacsiiyey markuu nebigu ku celiyo dhowr jeer xalay sadaqadaystihii sadaqada la baxay aaway markuu nebigu yidhi ayaa waa sara kaco gacantaan taagay buui markaa buu nebigu yihi sadaqadan xalay la baxday u sheeg buuhi asxaabtayda sadaqada maxay ahayd marka wuxuu yihi yaa rasuul allah xalay waxaan ku ducaystoon idhi ilaahayow waxaadna amartay inaan jihaadka nebigaaga aan raacno waa tabuuka markii loo baxayay nebigaaguna wuxuu nagu dhiirigeliyey inaan maanta safarkaa aanan hadhin oo dhaqaalaha yaga iyo nafteedaba aan nebiga ku raacno diinta ku difaacno laakiin rabbiyow yaa rabbiyow aniga waxaan ku baxon ciidankaa ku raacanay imaad siinin oo faqiir baan ahay wuxuu nebigaagu maanta igu qaado ciidanka inoogu darana isagana umaad diibine ilaahu waxaan sadaqad ka dhiganaya oon la baxayaa qof aley qofkii aniga dabadeeda igu xantay ama igu xadgudbay xaqayga ku xadgudbay ama i aflagaadeeyey ama waxaan lahaa iga dhacay ilaahow dartaa baan u saamaxee taa sadaqada la aqbalay ilaahow iigu dar buu yidhi cirdigiisii buu sadaqadaystay qofkii cirdigayga sharaftayda meeluu kaga dhacay cirdi waxaa la yidhaahdaa waa halka qofka ammaantuna ay ka qabato canaantuna ay ka qabato qofkii aniga oo ka warqabin macnaha ixantay ama xumaan aan lahayn igu sheegay ee qadfi igu sameeyey ama xoolo aan leehay iga dhacay anuu aan ogeyn yaa rabbi dartaa baan u cafiye cafiska addoommaha muslimiinta aan dartaa u cafiyey ilaahu sadaqada la aqbalay iigu dar marka taasuunbaa nebi allow anuu aan ogoon xalay ku ducaystay buu yidhi markaa buu nebigu yihi abshir bashaaraysa buu ka yidhi sadaqadii la aqbala taada xalay lagugu daray hadalka wanaagsan waa sadaqada fattaquu naara buu nebigu yihi naarta ka baqa aakhirada ku xisaabtama dad adduunye ma tihid dad aakhiro u socdaa tahay adu qofka muslimka ama doon ama diin aakhiraan u socnaa kulligeen
ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها فإن السفينة لا تجري على اليبس. dad nabadgelyo doonayso dariiqa lagu nabadgalay baa la maraya. dariiqa lagu nabadgalay waa maxay? waa dariiqa maaragtaan ee shareecada islaamku ay noogu yeedhayso, dariiqa alislaam. inaad ilaahay isku dhiibtaa qalban wa qaaliban, qalbigaaga ilaahay u dhiib, xubnahaagana ilaahay u dhiib. fahamna adduunyadana inay tahay meel dadka loo keenay in lagu ikhtibaaro oo aysan ahayn meel bini aadamku ay ku raaxaystaan oo loogu raaxeeyo. meel adduunyada maaha meel lagu raaxaysanayo. waxaa ka doona adduunyada raaxo. dee raaxa adduunyada taalla dee nabigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii sida adduunka loogu raaxayn lahaa. marka jannadii buu nebigu arkay, naartii buu nebigu arkay. camalka jannada lagu galaya nebigu waa la tusay. camalka naarta ku geenayna nebiga waa la tusay sal alla alay slam. markaa buu nebigu yihi camalka ugu wanaagsan ee janno lagu gala buu nebigu yihi imaalatu lada can ariiqi buu nebigu yihi dariiqa muslimiintu ay adeegsadaan ay isticmaalaan dhibaatada taalle oo laga qaado weeyaan buu. camalka ugu xun camal la qabto ee ilaahay lagaga fogaadana ee naarta loogu dhawaadana waxaan arkay buu nebigu yihi qandhoof masiil lagu tufay oo aanan laga masixin. almuqaacatu takunu fi lmasjidi laa tudfan falfish. alaa ukhbirukum biahli ljanna buu nebigu yihi. ahljannaha ma inii sheega haddana dadka jannada galaya sifaadkooda. haa soo maha kullu daciifin mutadacaf buu nebigu yihi. waa mid kastoo taag yar isagii baa daciif, uu taag yar yahay, itaal ma leh, dadkuna maaragtaanay ishoodu ma qabato oo qof liitay u arkaan. low aqsama cala allahi la abarah buu nebigu yihi. laakiin ka noocaasa hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay wax weydiisto, wuxuu ilaahay weydiisto ilaahay waa siyaabu rasuulku. isagii waa daciif oo isha ma buuxinaya dadka, uu taag yar yahay, dhaqaalo ma haysto, xoog ma le, itaal ma le, dadka kama dhex muuqdo. dadka laftigooguna way xaqiraan, way yaraystaan, waxba uma arkaan, talama weydiiyaan. hadduu ilaahay ku dhaarta buu nebigu uhi kaasi hee, laakiin dhaartiisa ilaahay waa aqbalaya. alaa ukhbirukum biahli annaar, dadka naarta galaya sifaadkoogana maynii sheegaa buu nebigu yidhi. kullu cutullin jawaadin mustakbir buu nebigu yihi. kullu cutullin jawaadin mustakbir. cutullin haliidu ljaafi waa qof kaste oo dabeecad qallafsan. dabeecad wuxuu leeyahay qallafa, cid uu la socon karaa ma jirto. reerkiisa isqaban maayaan, oo xaasigiisa ma heshiinayaan, oo jaarkiisa ma heshiinayaan, oo qaraabadiisa ma heshiinayaan, oo qof uu heshiis la noqon karaa ma jirto. waa qofka dabeecadda kakalna weeyaan. jawaadkuna baa la yidhi waa qofka cunta cunka badan leh, meeshuu fadhiistaba wuxuun buu cunaa. waad qososhe zamankeenni waa iska cuntadan aada loo cunaa soo maa. jawaad ukuul cunta cunka badan leh, meel kastuu fadhiistan wuxuun buu cuni. ulub olab ulub olab ulub olab. cuntadii way badatay, xanuunkiina uu batay maanta. cunto yaradu waa caafimaad, cunto badniduna waa xanuun. dhakhtaradii dadkii bukay intay ka daaleen oy dawana la kala daalay oo dawadii waxba tari weyday bilaataya noqotay oo bukaankiina uu batay, ayay dhakhtaradu qofka laba kula taliyaan. anigu haddaad caafimaad rabtay ku odhanayaan cuntadana iska yaree, socodkana badi. soo ma yidhahdaan ya socodkana he badi luge. dhaktarkii baa iga soo dhiyay doctaarkii. waddanada caalamkana qofba intuu lugayaa lacag loo xisaabiyaaba. waxaad maqlaysaan maalintii dadka waaweyn la urodsiinayay. dadkii reemiiga iyo reemagaalka midkaa caafimaad badan? reemiiga caafimaad badan. reemiigu maxay ku caafimaad bateen baa la yidho labada sifay dhandheer yihiin, cunto yar iyo socod iyo shaqo badan, way shaqeeyaan. haaruun rashiid zamankiisii
wuxuu lahaa nin dhakhtar oo roomaan ah oo caddaan ayaa u ima jiray baa la yidhi ninkii dhakhtarka ahaa ee roomaanka ahaa baa ku yidhi yaa amiira almu'miniin su-aal baan ku weydiinaya ha ka xumaan buu yidhi waa hagaaga su-aashaadii weydiinaysay weydii buu ka yidhi wuxuu yidhi qur-aankiina waan u fiirsado diintiinu cilma aladyaan unbay ka warrantaaye cilma alabdaan kama warranta buu cilma aladyaan diinihii qur-aanku wuxuu ka warramaa aakhiradu ka warramaa jannaduu ka warramaa naartuu ka warramaa xisaabta dambuu ka warramaa cibaadaadku ka warramaa laakiin cilmiga abdaanka ee jirhka dhakhtarnimada kama warrama buu yihi qur-aankiinu cilmiga caafimaadka haaruun rashiid baa ku yidhi aayad barhkeed ayaa ilaahay dhakhtarnimadoo dhanba uu kaga warramee laakiin waanad fahmayn buu yihi waanad maqlin malaha markaasuu balii sheeg markaa buu u sheegay kuluu washrabuu walaa tusrifuu kuluu washrabuu walaa tusrifuu ilaahay baa yidhi cuntada cuna biyahana acabba laakiin xadkii loogu talagalay ha ka badinina baa ilaahay ha ku xadgudbina ina aadan ma buuxin buu nebigu yihi xadiid weel ka shar badan calooshiisa kollay bini aadamku in yaru dhabarka iyo caloosha ku tiriya wuu u baahan yahe calooshiina saddex u qaybiya buu nebigu yidhi qaybna waxaad ugu tala gashaan hawada qaybna cunnada ugu talagala qaybna acabka ugu talagala buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam cilmigii dhannaa ee dhakhtarnimada aayad barhkeed baa lagu sheegay kuluu washrabuu walaa tusrifuu halka ahlaaljannahu jannada markay galaan iyaka la odhan doono kuluu washrabuu hanii'an bimaa aslaftum fi alayaami alkhaaliya ahlaaljannaha cunidda cuntada ay cunayaan loo xadidi maayo cabbidda sharaabka jannada dhex yaalla ay cabbayaan loo xadidi maayo waayo daartii waxa iyaku ay galeen haddeetoole bini aadanka shahawaadkooga lagu dhammaystirayey wixii bini aadanka dhibayoo dhanna laga rafacayba iyaku ay galeen waa janno weeyaan jannada dhexdeeda ku bukooni maayaan ku gaboobi maayaan ku dhimani maayaan amaa cunnada adduunyada markay noqoto maadaama adduunyadu ay tahay daar ilaahay uu ka dhiga daarul ikhtibaar waa daar faaniya oo dhammaanaysa marka cunnadeedii xad baa loo sameeyey kuluu washrab walaa tusrifu cun oo cab baa lagu yidhi laakiin ha israafin xadka ha dhaafin weeyaan haddaad xadkii loogu talagalay cunnada aada dhaafisaa xanuun baad ka qaadiyo ogow markaa nebigu sal alla alay wasalam ahla naarka calaamaadka lagu yaqaano markuu ka warramayay wuxuu yidhi kullu cutullin jawaab waa mid kastoo dabeecad engegsan oo dabeecad qallafsan oo dadkoo dhanna isqaban karaynin cidna la socon kari maayo jawaadin cunta cunka badan le buu nebigu yidhi mustakbirin kibir badan oo xaq haddii loo sheegana xaqa marna aanan qaadanayn qofka haddaad aragto xaqa loo sheega qaadan waayo sifadkaasi waa sifada mutakabiriinta ah sifadaa marka dambe qofka naar bay ku tuuriya ogow marka xaqu ha eegin cidda tidhi xaqa nin waalan hadduu kaa idhahdo war ilaahay ka baq maad la yaabi oo nin waalan war ilaahay ka baq buu kaa idhi waa inaad cabsootaa oo tidhahda war ninkaas waa laga dhawaajiyey ninka hadalka uu ku hadla waa hadal xaqa weeyaanoo anaa la iisoo dhex mariyay hadalkaas waa ina ilaahay ka baqaan laa tandur ilaa man qaala walaakin undur ilaa maa qaala laa tandur ilaa man qofka yidhi ha eegin laakiin qowlkuu yidhi eeg ittaqi llah hadduu kaa idhahda nin macduura dee waa war saxa warkaas dee ilaahay ka baq xaqana qaado dabeecadda wanaagsanna ku dadaal leanna akhlaaqda wanaagsan baa ummadda kugu dhex darya ogow qofka waxa mujtamaca uu ku dhex marayaa maaha dhaqaalihiisa maaha in aqoonta uu leeyahay qofka waxa bini aadanka qiimaha u yeelaya waa akhlaaqda wanaagsan lidalika nabigeenu sal alla alay wasalam mucjizaadkii nebi maxamed la siiyey mucjizada ugu weyn waxay ahayd waa qur-aanka akhlaaqda nebi maxamedna qur-aan bay ahayd caaisha radia allahu canha markii nebiga la weydiiye lagu yidhi caaisha nebiga dabeecaddiisa nooga waran waxay tihi nebiga dabeecaddiisu waxay ahayd qur-aan bay ahayd alqur'aan kaana khuluquhu alqur'aan macna alqur'aan waa maxay qur-aankaa oo socdu nebigu ahaa wuxuu qur-aanku faray buu nebigu la yimiday waxau qur-aanku ka reebay buu ayuu nebigu ka hadhay wuxuu qur-aanku xallilay buu nebigu xalaaleeyey wuxuu qur-aanku xarimay nebigu xaaraan buu u arkay wuxuu qur-aanku raalli ka yahayna raalli buu ka noqday
وحي قرآن كي شريعات ويدي نبي قواد ديدي قرآن سعودو نبي قوها قرآن الصبر كنا نقول دي رجليي صبر كنبي محمد وحوها قمة قرآن كو شجاعات نقول دي رجليي شجاع بوها نبي وقيس مع الصودا قرآن وحو نقول دي رجليي وقف مؤمن كأنه هذا قف لينا ودبعسن نبي محمد عيد كدبعسن أدون كما صومري قرآن وحو نقول دي رجليي الزهد زهد قفك بني آدم كمسلم كا إلي سندويد قلبك أيسكك قليني بل أدويد وقفك عنك وحيست نبي يقول الزاهد بوها قرآن وحو نقول دي رجليي نحريس بنين وقفك مسلم كموجيو نبي محمد عيد كان حريس بنين أدون كما صومرين قرآن وعدالت بكوكو دي رجليي نبي محمد عدالته حق سيكتم دي في غزوة أحد الغزوات غزوات كمدة أي النبي حوله وصوق عليه ومدى وقيبيي أقرع بن حابس نلا أورنجري أي أمرك قسمت دي سلوك يعني يبويري والله قسمت لقوا مع عدالة فلين إلهي درتنا لو قام جريبوي هذه القسم ما عدل فيها بولي ولا أريد بها وجه الله ابن مسعود بن مغلي مركا هذا القص هذا الكبر عبد الله بن مسعود تو قال النبي وشيء عليه الصلاه والسلام نبي وجهي سبب الدنبي والنبي محمد بلغوا له ياهي تسمدن اد خولها نوغو قيبسي كما عدالت سمينين الهي درتي وجهي سن وكما جيدي هذا القص مركا دعما مركا النبي هو ها بقرنا ما هي برزداننا ما هين وزيرنا ما هين جننا ما هين أباندولنا ما هين هو نبي هذو مدح نقول لها إن المدح هذه هذا الكلام اللي يقول هذا كل ذا بورنا سبوا قاس هون هذا حراية بلا أدب وين أدب تصوبر لكن النبي ويا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا الكمر النبي الله شيء ابن مسعود باو شيء ولي بنا وبدل من النبي وجيسو لكن النبي هو مسؤول فكره وحيري إن لم يعدل الله ورسوله إذن فمن يعدل بالنبي يقول هذا إلهي الرسول كيسو أي عدالة سمين إياكو أياكلوا عدالة سمين مركب النبي هو مسؤول هذا إلهي النبي هو عدالة إياكو أي سنكيني أياكلوا عدالة كين يقول لكن النبي يقول ولا الكي موسى فإنت إنك بدن بيقوم كيسو أي دبنا أو صبرت أنا ما صبرت مالين كلا يسوى سوق مدينة دح سعودة أي نري الباديو أعرابي النبي قدال حقا تبكاكي مدي وحاو نبي سوتي مركا قو بردة نجرانية أو غير نجرانية يسمسن جرين وصوفة أو دنعيادنا آدو آذك أيو نبي قدرت كسيتي نكي أعرابي انتو نبي حقا تبكاكي مدي وقوي نبي كسو قندي هل كان النبي مرة ثانية قوي بكسني النبي علامة إلى أنه عصادين مركبون يا محمد مر لي ما لله الذي عندك حولها إلهي وليهي إلهي أكت هذا ودقي أمر أصحاب هذين حولها وحليقة سيبي انت قفوا نيكا نبي قوقي سيهيك صلى الله عليه وسلم مرضي نبي قوهم قريقا كاكقرتي وكو يا محمد بوي يا رسول الله حتى مولا يا نبي الله مولا يا شيخ قرآن كدن بادرك يسامر كذاك إله كريم كي عظيم كي الرحمن كي الرحيم كي جعله ونبي وجعل هي قدرين إلهي نبي محمد قدرين أيوه قرآن كمي إمن لفظ يا واسو حرف النداء صوما يا محمد قرآن كمي إمن النبي آدم عليه السلام قرآن كويكتب يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا نوح إنه ليس من أهلك لكن قرآنك يا محمد بالكسر وصارع كما إيمان إلهي محول يا أيها النبي
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إله عظيم كي كريم كي عزيز كي جبار كي أيا حرمت النبي جيسا أوهي الرسول جيسا محمد عليه الصلاة والسلام يا ما استعمال إلهي مركو النبي جيسا الله الله يو وحي إلهي استعمال كن يدو إلهي استعمال يا أيها النبي كي أنظرتيو يا أيها الرسول كي أنقو أنظرتيو يا أيها المدثر كان ازدديو يا أيها المزمل كان مرر اسكدو دوبا يو قالوا فيس أعرابي قلنا وحو استعمال يا محمد ومالك النحصو ما مر لي أمر إيسي بولي حولها أدقو ملهيدة إلهي أكت هذا أودقي إلا يسينا أمر سيبو كي مرقاب النبي قلتو قصليبو كي ورسيه بولي لما بقولوا هلادو قيلا لسيه يا سلام وحب حكرا من شيء بل المسؤولة ما أنت واحد كتر على ورني ولا عقد أنا هيسد أدوم اللي هذا ولا عقد ودك وإحنا قصي كده واحد قال ولا أركي حاج يجيبوا فضي حدايا الله ورسول ما قلتوا كل ذا لماذا؟ لأن النبي صفات النبوة وقوني صفات بني آدم كلنا وقوني النبي عليه الصلاة والسلام كون كانوا حوي مدي طريقة ضدك أي كنا بدقلا يعني اللي قد ينلها إنه أمد أوجح النبي عالم كويمي طريق النبي وجاح يا أخي ولا طريق صومر والليبان إنسان سي يقول لما بقولوا هلا ذو قيل لسي افتيس ما عرونين ما أرجو سنين سوق مدينة مالك اللي سوى دح سعودة وأبو بكر يا عمر الصحابة هريرها كم ريان أيا نين يهودية أيا النبي عليه الصلاة والسلام سوق قالوا هل كعبد ما يسوون قصدوا كل دقيقة النبي مركز يا بني عبد المطلب يا محمد آل عبد المطلب أنكم إن بالله ما نلنا ولينا وانا قنا دبي عدي النه وحولها ضدك أتقادتان مسوع لسانه حولها كقولها يسيبوا كي قالوا فلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيا مركي بس يفتح كلام بحيل الليل مركبوا يا رسول الله قال كان يهودي يقول فسحنا قرتك يقول لي بكي مركب النبي يقول ماي يا عمر ما يصير ما هذا النبي مرة لقوا هل كانوا النبي قاعد كذا كان سنة إنها عصابة يا عمر أنا أسقوا بس هذا سكدون أيان كذا بحنين بكي إن هذا سجنا كتر هذا النبي قدين واتكل هذا حي لكن دينك مالما أيا كانوا صدح مالما كهذا بالله كي أكادين كتر هذا أيا كذا حبوني أنا كان هذا كتر هذا النبي الله ده حوله هذا كذا ونا ده إسكسي يا عمر كحيو سديت الساعة تمرة أيا إنك أنا كأم هذا يقول لي هي سديت كي ساعة تمرة هلا سيو لا باتنا وقدر بوكيل وأنت تكلم حسين إلا سيفتو قالك وقلب بحبوت لا باتنا دارات كان نيجي يهودكم من مغلايو مركو النبي عليه الصلاة والسلام كلا دقاقين وعمر نكي كحيي وبيت المال كي لا يمدي أيا سديت كي سي صعب الله قبو حيا مردي سي مركي الله بحيا هلك الله دقي أي عمر لا باتنا قدري إلى أنك يهودي يرادو يا عمر أنا لا باتنا مال هي قدا نبي يقول أمر إنا قصيو وما حد يسين سببت ومحي وأنت أن كان نحيي ويعني فأنت يعني أن سيفت الله صباح أن كان نحيي النبي يقول أبل مركز يا عمر زيد بن السعنة ما مقصنك اللي قالوا زيد بن السعنة ها مركز الحبر نكي عالمك يهودين يهودا إن لدقن شيخوغي عالمكوغي مياتهي ها نكاسانا هي وهجاج أدقوا عالمة وأمدا أن لدقن مالك تانا يهودا دقن دقاك المدينة عالمكوغي التوراة هيا نبي دنو إلى هاي صدري ووليبا كتبتي إنه أي شيء يسو إن تسوق مقالة المدينة كل بحد الشاه أيضا بلن كينا سدح مع الموضوع كده ما انتهي معاكو قاعد بريب وكده إيش هيك وعد الصفات كي النبي يدو أي لهايان ودن إيه كتبت أنكو أركنا وان كأرك محمد إلا الله ما أمبارن كأركن لما دانا مصو الظاهرين إلا النبي قد بعثه لولي ما دمه يعني
marka sifaad baa nabiga ka buuxsanayay guud waa sifaadkee cadadiisa iyo dulqaadkiisa waxa qaaliba dulqaadkiisa sareeya jaahiliintu xaqiisa markay ku xadgudbaanna wax kale nabiga ugama ziyaadaan ilaa dulqaad unbaa nabiga uga ziyaada marka sifaadkaasa iga maqna sifaadkaana sidan unbaa lagu ogaan karaye ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah xoolahaygaasoo dhanna ku celi baytalmaalka hanti badanna waan leehay hantideedaana waxaan u bixiyay buhi muslimiinta in lagu sadaqadayso wa innaka la calaa khuluqin cadiim khuluq akhlaaq weyn calayhi salaatu wasalaam ra'iiskii munaafiqiinta cabdullaahi bin ubay ibnu salool oo dadka muslimiinta u dhex socda inuu muslimiinta niyad jabiyo oo munaafiqnimadiisuna ay caddaatay fii ghaswati axzaab yaquuluuna lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun maadaamuu sidaa yidhi weliba ninkaasi hee ayaa inankii uu dhalay oo saxaabada rasuulka raggii ugu qiimo badnaa ka mid a ayaa nebiga u yimid oo yidhi yaa rasuula allah aabbahay munaafiqnimadiisii caddaatay buuri way caddaatay dee qur-aankii baa caddeeyey u fadeexadoobay khalaas qur-aankii baa yaa fadeexaday mo waxyigii baa kusoo degay intuu nin kale oo muslima aabbahay uu dili lahaa ninka aabbahay dilay aniguna ha dhowtoole intoon cadaawad u qaado aan dili lahaayoon sidaan naar ku geli lahaa aabbahay maadaama munaafiqnimadiisii ay caddaatay oo ra'iisulmunaafiqiinna uu yahay kurkiisa anaa ka soo goyna kuu keeniye igu fasax buu ka yidhi markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi may kugu fasixi maayo aabbaha inaad soo dishay waayo haddaan aabbaha waa runta waa munaafiqnimadiisii caddaatay haddaan kugu fasaxo ood soo disho maaha la odhan maayo munaafiq bay dileene waxay ku sheekaysanayaan cadowgeennu moxamed asxaabtiisii buu isku dhifto aabbiya inankiisii baa isdilay oo isku laayay meesha dhexdeeda markaa sharkiisa ilaahay baa naga kaafin doonee adigana waa aabbaha ee suxbadiisa wanaajiyo u samafal maadaamuu inala socdo uu magaalada madiine inala joogo sharkiisa ilaahay baa nagaga filane adiguna aabbaha u samafal buu ka yidhi halkaa maxaad arkaysaa nebigu ummadda uu isku waday isku waday dhaqaalo kuma wadin akhlaaq buu ummaddiisa ku waday nebigu akhlaaq qaa'id ka sharaf badan ka qiimo badan ka naxariis badan ka hoggaamin fiican ka cadaalad fiican ka dulqaad badan ka dhibrin badan ma soo marin adduunka ugu mana soo mari doono salaaddu u kici jiray markaa buu nebigu yidhahdaa inaan salaada dheeraystaan damcaa laakiin waxaan xasuustaa buuhi ilmaha yare ooyaya ee oohintiisa hooyadii oo gadaasheeda ku tukanaysa ku dhibaya markaabaa salaada khafiifiya buu rasuulku yidhi cajiib salaada taraawiixda 2 habeen buu jamaca tujiyaa la yidhi habeenkii saddexaad uu ka booday wuxuu u daayay taraawiix inuu habeenkii saddexaad uu tujiyo ummadda wuxuu nebigu u daayay baa la yidhi in lagu farad yeelo ummaddiisa daadna maaragtaane ummaddu ay kari weydo lagu cuquubo taasuu ka baqay rasuulkeena naxariis badana ku salli rasuulkeena masaajidkuu soo galay habeenada ka mid a qaybta dumarku ay ku tukadaan uu isku muuqday miskiidku ragguna intan horay lahaayeen ubadkuna dhexday lahaayeen haweenkuna maaragtaane way safafka dambe xaggaa dambe ku tukaneen waa u muuqanayn majmaca markaa buu arkay xadhig 2 udub dhexdooda ku xidhan markaa buu xadhiggii arkay xadhiggan ayaa xidhay oo maxaa meesha ku xidhay zaynabaa xidhato oo maxay u xidhatay buu nebigu yidhi salaata leylka habeenka markay ku daashay qabsataaba laga yidhi markaa buu nebigu xadhiggii uu gooyey wuxuu yidhi camalka aad samaynaysaan ee khayrka malaa'igta ajarka inii qoraysa kama daalayso ilaa ininkoo camalka qabashadiisa ka daala mooyaan habeenkaad nashaadka tihiinna buu nebigu yidhi tukadoo cibaadaysta habeenkaad daalantihiina iska seexda buu rasuulku yidhi waa salaada sunnaha naxariis badan
sala allahu calayh wasalam. wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. xasan iyo xuseen buu maalin la ciyaarayey, markaasay nin reer baadiyaa nebigu u yimid oo acraabiya oo yidhi ciyaalkaada ma dhunkataa? maxaa u dhunkan waayo waa ubadkaygii, wallahi inu 10 wiil baan dhalo weli midna kama dhunkan buu yidhi. markaa buu nebigu yihi dee maxaan kuu sameeyaa haddii ilaahay qalbigaagu naxariistii ka siibay? man laa yarxam laa yurxam, kaan naxariisan looma naxariista buu rasuulku yidhi. haddaad ilmahaaga u naxariisan weyday adna ilaahay ku naxariisan maayo. meesha naxariista laga soo bilaabaana waa aqalka, meesha dhaqanka wanaagsan la tusaa ee in la tuso u xaqlana waa reerkaagii ogow. akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa waina khiyaarukum khiyaarukum liahlii wa ana khayrukum liahlii buu rasuulku yidhi. kuwiina iniigu iimaanka fiican ee iniigu iimaanka kaamil kale ee iimaankoogu uu dhammaystirmay buu nebigu yidhi waa kuwa dabeecadda wanaagsanna buu rasuulku yidhi. ma odhan nebigu waa kuwa salaada wanaagsan leh, ma odhan waa kuwa soonka badan leh, ma odhan waa kuwa aqoonta badan leh, ma odhan waa kuwa wacdiga badan leh. waxa uu nebigu yidhi kuwiina iniigu iimaanka kaamil kale ee iimaankoogu dhammaystirmay waa kuwa iniigu dabeecadda wanaagsan. waxaa kaloo iniigu khayr badan buu nebigu yidhi ragga reerahooga u khayr badan, anaana reerkayga u khayr badan buu rasuulku yidhi. inaad khayr leedahay, akhlaaq wanaagsan leedahay, dulqaad badan aad leedahay, naxariis aad leedahay, dhibrin aad leedahay, cidda u horraysa ka markhaati kacaysa waa inay noqdo reerkaaga. afarta oday ee miskiintii aad isku barateen inay dabeecad wanaag kuu sheegaan waa suuragal, laakiin islaanta 30 sano aad la noolay inay tidhahdaan ninkaygu waa weli ilaahay, waa nin dabeecad wanaagsan, xaqayagii uu ilaaliyey, xaqa ubadkana uu ilaaliyaa, xaqa jaarka uu ilaaliyaa, xaqa qaraabada uu ilaaliyaa, ma sahlana. laakiin jamaacadda miskiidka aad isku taqaanaan inay kugu sheegaan ninkaasi waa nin cibaado badan, waa nin isniintii khamiista sooma, waa nin miskiidka nooga soo horeeya, waa nin masaakiinta siiya, waa nin ummaddu ay ka nabad gashay inay ku yidhaahdaan way fududahay, waayo iyaka maalintii saacad baad wada joogtaan. laakiin iya ku yaqaana dabeecaddaada dhabta, islaanta 30 sano aqalka aad ku wada noolaydeen, taasaa dabeecaddaada dhulta taqaana. sawsadaa maaha dee nin sheekhaa beri qisan looga sheekeeyey. wuxuu yidhi nin caalima oo ardaydu aad u jeclaayeen, xerta aad u jeclay, iska daa xerteen mujtamac oo dhan ba aad u jeclaa. akhlaaq wanaagsan buu ilaahay siiyey, taqwad baa ilaahay siiyey, cilmi baa ilaahay siiyey, alla ka cabsi baa ilaahay siiyey. laakiin ninka wuxuu ilaahay ku hagaajiyey islaam kulul oo dabeecad adag, oo markuu inta uu magaalada socdana kabihiisa inuu qaato looma ogolo, masalladu ku tukanaya inuu qaato looma ogolo. aqalka markuu galana islaantaa ku shaqaysata, dhariguu karin, biyuhuu dhaamin, dabkuu shidi, iyada dhan buu cuntada siisiin. markaasay odhanaysaa magaaladu sheekh bay ku haysataaye aniga agteeda shaydaan baa tahe ii khidmee bay odhan. hadal ka keeni maayo, uu khidmayn uun, uu khidmeeyaa uuna ma hadlo, ma sheekeeyo. awal aqalka gudihiisay ku dirdiran jirtay baa la yidhi. markii dambe waxay ku tidhi anu haddee toola waan daale, xaabada ii soo guro, biyahana ceelka iga soo dhaami ceelka. ninka sheekhana waa ninka magaaladu kabihiisa inuu qaato uma ogolo, jacaylo iyo ixtiraam ay u qabaan. markaasuu yidhi ilaahow astur, ilaa haddii la ogaado sheekhiioo xaabo guraaya oo biyihiina dhaaminaya, dadka waxay odhanayaan war sheekha aqalka dhib baa ku haysatee inkaarqabtadan waa maxay sheekha dirata, waa la habaarka ku dhici. taabuu markaa uga baqayaayo wuxuu yidhi ilaahow miskiinta adii xaaska aad iiga dhigtay umulciyaalka, ilaahu ha igu hoojina maanta igu astur. magaaladiibuu ka baxay, ardaydii buu yihi muraad yar baan leeyahay iska hadhay buuro. marka xaabadiibuu soo guraya, dhul cidluu tagay, xaabadiibuu soo guray, meel buu ku ururiyey, biyihiibuu dhaamiyey. ilaahow aniga islaantaas, ilaahow islaantaayo ummadda kale ilaali buu yidhi. libaax socdo unbaa u yimid oo hor fadhiistaa la yidhi sheekhay.
xaabadii iyo qorihii buu saaray libaaxii biyihiina dhinaca kale ka soo saaray magaaladii la soo maray sheekhu libaax wata markaasaa la yidhi awalba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo la waan ogeyn inuu ahaaye maantayba karaamadiisii daahirtaa la yidhi albaabkii buu hor dhigay islaantii meel bay ka qaawisto libaax bay aragtay alaabta usoo sidaa ilaahu inuu soo gelin libaaxaas ilaahu libaaxa igu soo gelin dibadiibuu markaa libaaxii joojistay halkii buu kaga dhaadhiciyay xaabadii biyihii libaaxuu iska socday isagaa markaa xaabadii aqalka soo geliyey biyihii buu soo geliyey markaabay ku tidhi dameerka foosha xunne maanta soo rarteen ayaa kugu caawiyey ka tiri nabiga ku salliya ina kayda kuna cadiim ilaahay baa sheegay soo maa hadda way arkaysaa indhahayga ilaahay inuu u gargaaray ninkaas maca dalika haddana ma sadaqayso waxay ku leedahay war dameer fool xumaad wadata maanta xagga ka keentay oo iska aamusay markaa muddo yar kadib islaantii baa ka dhimatay sheekhii maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii magaaladii baa isku tegay waxaa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore kaloo lamida waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daadna ma aragtaanay markaasa haye aqalkii baa loogu hooyey dee waxay tidhi way og tahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma og tahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiyo wuxuu soo rari doonaa iyo maaragtaanay libaaxii baa biyahay xaabada kuu keeni doona dee markaaba de sheekh xaabadii iyo biyihii way naga dhammaadeene markaasuu dhib male iska fadhi insha alla ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii buu tegay libaaxii ma iman de markaas isagii baa markaa ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaasuu magaaladii la soo dhex maray warag inkaar qabtada sheekha aan u dhisnay ee sheekha raratay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina may baa lagu yidhi wuxuu ihi libaaxii islaantii hore iska lahayd nabiga ku salliya akhlaaqda allah hayna siiya innaka yacni qisadaasi waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aada leedahay dadka ugu xaqle inay arkaan waa dadka guriga jooga caaisha radia allahu canha baa nabiga la weydiiyo o lagu yidhi nebiga akhlaaqdiisa ka warran baa lagu yidhi aqalka markuu joogo siduu ahaa marada ka googo'day buu nebigu karkaran jiray tidhi kabta ka go'dana isagaa gacantiisa ku tolani jiray neefkiisana isagaa maalan jiray annakana aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanay buu noo qaban jiray tiri laakiin salaaddu hadday gaadhay tiri caaisha nebigu salaad buu usoo bixi jiray bay tiri ninkee baa maanta odhanaya intuu xaaskiisa ku yidhahda iyo hablihiisa aabba bal maanta nasta anaa dhariga inii karana muu jiraa aniga maanta dhari karinta igu daaya ma dhici karto waxaaban u aragnaaba ihaano inay tahayba inuu ninku reerkiisa u khidmeeyaa uu xaaskiisa u khidmeeyaa uu ubadkiisa u khidmeeyaa uu noqdaa nin adeegayo akhlaaq wanaagsan waxaan u aragnaaba nin doqon oo islaamtu ay ka adag tahay buu yahay khuluq akhlaaqda nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu horreeye ka markhaati kacay akhlaaq wanaagiisa waxay ahayn xaasaskii rasuulkeena u naxariis badnaa u dhibrin badnaa marka qiyamkaa wanaagsan buu nabigu mujtamaca la dhex marayay mujtamaca reer madiina wala fiirso inan dhalinyara ka kacay maskiidka dhexdeeda gacantuu taagay yaa rasuul allah ani zinada ha lay fasaxa buuri ma dayn karaye wallahi inna lillahi war maxaa markaabuu nabigu ii daayay soo dhawow kaale walaalama kula dhasheen haa wayla dhasheen gabdha walaalahay wayla dhasheen gabdhaha walaalaha ayaa kula dhashay in xumaanta lagu sameeyo ma ka raalli tahay markaasuu may waan ku dul dhiman buu yidhi habaryar ma leedahay haa waan leehay habaryaraha in waxaa loola taga ma jecesha aad doonaysa inaan kuu fasaxo may waan ku dhiman buu yidhi dhimashaan ka aqaana markaa aad tiri ii fasax zinada kaba soo qaad haddii zinadii laguu fasaxo ta aad ka zinaysan raggaa halkaa fadhiya unbay ama walaal ugu toosan tahay ama eeddo ugu toosan tahay ama habaryar ugu toosan tahay sida adiguba haweenkaaga aad xumaantaa raalli aad ugala ahayn ayakuna xaasaskoodii iyo dumar iyo hablahooga iyo qaraabadooda gabdhaha qaraabadooda in xumaantaa loola taga iyakuna raalli kalama aba ku yidhi rasuulka markaa yaa rasuulla haddaba ii ducee
markaabuu nabigu yidhi soo dhowow halkaabuu nabigu gacanta u saaray laabtiisa ilaahu qalbigiisa xumaanta uu ku haminayo ka masax farjigiisana ilaali dembigiisana ilaahu dhaaf buu rasuulku yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin acraabi nin reer baadiya ayaa masaajidka dhinacaa dambe intuu istaagu kaadidiisii miskiidka cawrada intuu la soo baxay buu ku kaadiyey markaabay saxaabadu ku yaaceen markaabuu nabigu yihi dacuuhu dhaafa buu nabigu yihi daaya buu nabigu yihi kaadida ha ku kala goynine meeshuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba buu nabigu yidhi isagana iigu yeedha buu rasuulku yidhi nin acraabiyo reer baadiya oo magaalada madiina ku cusub oo lacalla laga yaaba inuu u yimid diinta islaamka inuu barto oo xishood weli aanan qalbigiisa xishoodku gelin iimaanku weli qalbigiisa uusan gelin diinta islaamka weli aan waxba ka garanayn waa masjidkii nabi maxamed cawradiisii kula soo dhex baxay kaadina ku talleejiyey masjidka dhexdeeda ayuu nabigu saxaabadii ku leeyahay dhaafo daaya isagana aniga iigu yeedha meeshuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba markaabuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam halkani waa masaajid weeyaan waa meel loogu talagalay in ilaahay lagu caabudo keliya bas waa meel daahira salaadaa lagu tukadaa qur-aankaa lagu dhex akhristaa ilaahay baa lagu dhex xasuustaa iyakiina wuxuu ku amray halkii uu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba innamaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin baa nabigu yidhi ummaddaydiyey asxaabtaydiyey waxaa ilaahay adduunyada u inii keenay inaad ummadda xaqa u dhibrisaane inaad ummadda xaqa ku adkaysaan ilaahay adduunyada iniima keenin buu rasuulku yidhi bashiruu walaa tunafiruu yasiruu walaa tucasiruu bashiruu war ummadda khayrka u bishaareeya buu nebigu leeyahay walaa tunafiruu ummadda khayrka ha ka firxinina ummadda naxariista ilaahay ha ka quusin ummadda infiraar ha ku ridin ummadda khayrka u bishaareeya oo waxaad tidhahdaa khayr baa inoo soo socdaa zamankani waa zamankii islaamku soo noolaanayey waa zamankii saxwadda islaamigu ay soconaysay qof diinlaa la doonayaa qof diin yaqaanaa loo baahan yahay qof dadnimo leh ayaa iman doona in talada ummadda loo dhiibto cid walba ummadda hoggaan u qabani maayo ummaddani waxay qaa'id ka dhigani doontaa ummaddeeda taqaano qiimo leh oo ilaahay rasuulkiisa taqaana bashaaree ummadda khayrka u bishaaree waxaad tidhahdaa khayr baa inoo soo socdaa xanuunkan la sheegayo may ilaahay baan haysannaa ducadaa ilaahay noo aqbalayaa sadaqadaa bixinaa ilaahay nagaga qaadayaa ducafaa masaakiina baan nahay ilaahayna dayici maayo ummadda khayrkaa loo bishaareeyaa ummadda wax ka nixiya looma sheego ummadda rasuulka yasiruu walaa tucasiruu fudaydiya buu nebigu leeyahay haddaad wax sheega ummadda u fudaydi haddii talo ummadeed lagu dhiibo talada ummadda u dhimri buu nebigu yidhi walaa tucasiruu ha ku adkeen ummadda talada ninka ummaddayda amar ilaahay ninka ummaddayda talo u qabta ee u fudaydiyana ilaahu u fudaydi buu nebigu yidhi ka ku adkayana ilaahu ku adkay buu isaga yidhi mas-uuliyiinta zamankan imaa habaar baa ku dhacaaya imaa ducadii nebiga u soconaysa ogow hadday talada ummadda ay adkeeyaanna ilaahay waa ku adkayn iyakana hadday talada ummadda dabciyaanna ilaahay iyakana nolosha waa u dabcinaya mas-uuliyadda ilahay u dabcinaya ilaahay baa garabkooga galaya wa ilaa haddii kale ilaahay garabkooga ka baxaya iyakana marka dariiqad buu nebigu noo jeexay dariiqatu lxayaat la yidhahdo saad u noolaan lahayd buu nebigu kuu jeexay waddadeydii marka meel kale ha u leexan ayuha almuslim soo noqo ilaahay u soo noqo diintiisa wa ana hada siraatii mustaqiima faاtabicuuhu waa kaa jidkii toosnaa soo raaca la leeyahay toosan yahay waxwey cad ma leh ilaahay baa raalli kaaga noqon oo nebigiisaa raalli kaaga noqon oo islaamnimada kolkaas sideeda aad u qaadato noloshaada adduunyada iyo taakhira ku wada hagaagi diintu nolosha way fudaydin lidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam shaksi wuxuu ahaa diinta islaamka isaga lagaga daynayay buu ahaa markaasuu nebigu noola yimid akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan dulqaad badan sabir badan adkaysi badan naxariis badan dhibrin badan iska dhex socday dadka uu la cunayey iyaka uu la fadhiisanayey uu la safraayey uu la soconaayey kii u yimaada ee la hadla hadduu ka sii jeedo qofku nebigu qoorta ma qalluucin jirin baa la yidhi uu sii wada jeesanayay hadduu nebiga qof gacan qaado qofka oo sii daaya mooyaane nebigu ma sii daynayn baa la yidhi
hadduu dad meel fadhiya nebigu u yimaado assalaamu calaykum yidhaahdo 3 jeer buu nebigu salaanta ku celinayo assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah 3 jeer kelmad hadduu ummadda u sheegayo 3 jeer buu nebigu kelmadda ugu celin jiray si hadalka ummadda ay u fahamtay qalbigooga u galo markaasuu diintii islaamka oo dhan buu nebigu yidhi taraktukum cala almaxajati albaydaa layluha ka nahaariha laa yaziiqu canha ilaa haalik dabaqad kasta ummadda aad ugu jirtaa si aad u dhaqmi lahayd shareecadda islaamku way kuu caddaysay raacun bas taajirkii siduu tijaaradiisa u qaban lahaa way ku taallaa shareecaddeena mas-uulkii siduu ummadda xilkayga u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa aabbuhu xilka reerka siduu u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa ninka dhallinyarada labada waale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa jaarku jaarka kale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa xaasku ninkeeda sidee ula dhaqmi lahayd shareecaddu way noo sheegtay qofka saacad aad wada safarteen saacadda aad la safarteen walaalkaas aad ula dhaqmi lahayd diintu way kuu sheegtay diin dhammaystiran maxaa layna siiyey diin dhammaystiran say diinta nolosheenna ku iman bay culimmadu leeyihiin waa inaan diinta ka shaqaynaa waa inaan diinta beernaa khayrka waa la beeraa waa laga shaqeeyaa maal lagu bixiyaa waqti lagu bixiyaa dhaqaalo lagu bixiyaa fikir lagu bixiyaa la qayliyaa oon la aamusin haddaad qaylido waa lagu iman haddaad aamustase waa laga aamusa aydu dabeecaddooda habeenka way ciyaaraan soo jeed mise way seexdaan ya soo jeed aydii baa isku timiday way tashadeen waxay yidhahdeen anigu dadkao dhan habeenkii khalqiga o dhan habeenka waa jiifsadaane way jiiftaan oo xayawaankii xoolihii wax o dhan way hooyanayaane innaka maxaa ina wareejiye waata aydu habeenka way wareegtaan soo madarka salaada fajr markaa ka baxnay seexdaan baa la yidhi habeenka o dhan bay qaylayaan xaggan u kaciy xaggan u kaciy xaggan u kaciy waxay ku tashadeen baa la yidhi khalqiga inay wax la qabaan ay wax la wadaagaan oo habeenka inay iska seexdaan tuug baa markaa ogaatay ayadii inay seexatay tuugtii baa magaalada usoo dhacday ila aygu habeenkii muxuu sheegaa tuugtuu sheegaa tuug walba aqalku ku hagaagayba wax ka dhacay baa la yidhi tuug baa markaa aqalku kusoo hagaagay wuxuu is yidhi kuwan waa fuqaraa waa masaakiin aqalkooga wax ma dhex yaalle urgigan ur gacan yar waa madow dhulku mana arkaayo kiishka ku rido ay yaroo markaa meesha fadhiyo dee aamusaa lagu suureeyey mogta aydii maxay ku suuraysa alla seexda lagu suureeyey aygiibu ku rita kiishkaa la yidhi bannaankay ula baxeen nin walow bal xalay aydii bu ilaahay naga jiifiye bal waxaa la sheeqadka soo dhig lacag mid dahab mid dhar mid baa yidhi anigu aqal yaroo dad ducafaayo masaakiina ku hagaago urgac yar baan ka soo helay kiishkii waxaa kaga soo baxay ay yar soo tacab khasaar maaha uu xanaaqay war waan tacab khasaaray lugya gacan buu ka jebiyey aygii waa abaalkaa buu yidhi waala aygiioo lug jaban oo gacan jaban ayaa aydii u yimid oo yidhi go-aankii habeen hore la gaadhay ha laga noqdo buu yidhi nabiga ku salliya oo maxaa looga noqon baa la yidhi o wuxuu yidhi qaylada habeenkii aan qaylaynay annagana danbay noo ahayd ummaddana danbay u ahayd ismac ayuha almuslim wallaahi xaqa ninka ka aamusa buu nebigu yihi waa shaydaan afla buu rasuulku yidhi baatilka maanta meel walba ka muuqda haddaana ducaad noqon in lam takun daaciyan fatakunu madcuwan haddaad haddii ummadda khayrka ugu yeedhin adaa sharka lagugu yeedhiyo ugu inaan yeedhnaan loo baahan yahay qaylaan ku nabadgalaynaa haddaad aamusta samiya haddaad aamusto adigana waa lagaa aamusi maalinba maalinta ka dambaysana ummadda khayrka wadda way yaraan doontaa iyo ogaada marka inaan dacwadda u kacno qayladu waa dacwadda weeyaan oo shaqada diinta culammada keliya aanan ku dayne caamadeenna culammadeenna dhallinyaradeenna odayadeenna tujaarteenna fuqaradeenna shaqaalaheenna madaxdeenna mijaheenna diinta dadaalkeegana aan gacmahaas ku qabsanno niyooda insha allah dhahada or ayaa niyooda bal gacantaa taago inuu shaqaalo diinadoo la aqbalo ilaahay ka dhigo allah inaga dhigo soo diyaar garooba inagu khamiista boosaasaan u soconnaa
اجتماعي بوصاصة خميس تدعي دونا أفر بلودي أفرتن جماعة بدل ما رجينا إنا كبح لا بقول جماعة ده يكون عاصمة دي وحدين وطن كي سعودية القروة جماعة كنا إن شاء الله من عام لعام مستنين